geeda tiriyo ka tegay qurac tilmaantiisa oo tiinka iyo qabada tabaya meygaaga tusmo xume taariikhda miyuu taaka ka ogaaday. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلنتي وعنا وناكسان أصحابتا إن جعلنا يوم من الباجوتان كنا سود وذا برنامج كيني برشاد ديرتا كبحة أما أتكلم سعوتان جانل كان يوتيوب كحيس جروبس منوال بخمسة ما أنتوا راح نسوق عضنا جيت كم جيدا يسوع مالدو آد تقانا ولو مقعب قرع تقانا إن قرعة وحنا وجيت كبحة برجع نحب ضنا يقول جيس كأفريقيا tilmaamooyinka ama sifooyinka ay leeyahay geedka quraca waa sida waa geed abaareed qodaxla ah ilaa 22 mitir ama 69 feet kor u baxa baarka sare sidii dalad oo kale ah. dadka qaarna ayaa u yaqaan abqo meesana sababtii waxa loo yaqaan abqo. waa geed caan ka Afrika oo una badan geeska Afrika waxa kale oo laga helaa bariga dhexe gabayba waxa ku jiray tuducda ninka geedo tiriyo ka tegay qurac tilmaantiisa oo tiinka iyo qabada iyo tabaya meygaaga muxume taariikhdaba miyuu taako ka og. haddaan ku soo celiyo waa nin geedo tiriyo ka tegay qurac tilmaantiisa oo tiinka iyo qabada iyo tabaya meygaaga muxume taariikhdaba miyuu taako ka ogaaday. waxaan kala soo qaadan doonaa dhulka uu ka baxo geedka quraca oo noocyo badan ayaa waxaa caan ku ah qaaradda Afrika laga soo bilaabo Senegal lagu keeno bariga Afrika ee Soomaaliya ilaa iyo koonfurta Afrika wuxuuna ka baxaa sidoo kale bariga dhexe sidoo kale waxaa laga helaa Iran 1958 ayaa India lagu beeray iyo Pakistan. tilmaamaha guud ee quracu leeyahay idin dul maro waxaa ka mid ah waa geed cimri dheer oo weynaada 100 sano taagnaan kara u bada geeska Afrika wuxuu ka baxaa dhulka oo manaha iyo saxara ah wuxuu yeeshaa xidido dheer oo ku kaalmeeya inuu qoto dheer iyo biyo helo. wuxuu ka baxaa tugaga iyo buuraha dushooda wuxuu ka fogaadaa meelaha ay biyuhu fariistaan ama ay jeexaan. waa geed u adkaysi kara abaar dheer iyo kaliisha meelaha ay biyuhu fariistaan. waxaa ku filan roob 40 mililiter dhulka gala wuxuu adkaysan karaa biyo la'aan hal bil ilaa iyo 12 bilood. geedka ayaa jecel dhulka jilicsan oo cusbada leh. xididada quraca ayaa dhulka ku fogaada ilaa iyo 35 mitir markii meesha ay tahay lama deegaan saxara ah cara jilicsan leh. wuxuu samaystaa xidido banaanka u dhow ama yaala meelaha biyuhu ka dhow yihiin ama ay fariistaan. dhererkiisu ayaa gaara 21 mitir ama 69 feet sida hore kugu sheegaba. caleemihiisa ayaa aad u yar waxaana dhalaa ubax yaryar oo cadcad mirihiisa oo abqa ama aqbo. taqaan Soomaalidu ayaa ah kuwo dhuudhuuban oo isku soo laama badanaa waxaa cuna geela iyo ariga dadka iyo dhammaan duurjoogta dhirta cunta. wuxuu leeyahay xabag la cuno. wuxuu leeyahay qodxo dhaadheer iyo kuwa yaryar. geedka iyo Soomaalida ayaa geedkan aad u jecel una adeegsata waxyaabo badan. waxay ka helaan ulaha guryaha lagu dhisto waa afsadaan dirtana waa ku galaan. waxaa kaloo laga helaa laamihiisa ulo dhuudhuuban oo dadka reer guuraaga aad u isticmaalaan oo xooluhu ku raacdaan siiba geela. caleentiisa waxaa daaqa ariga